diintu maxay ka qabtaa qof islaam ah in la midabta kooro ama la faquuqo sida isma geyno oo kale lagu yidhaahdo. waa waxyaalaha jaahiligii laga dhaxlay ka mid tahay. nabiyullaahi moxamed wixii uu tirtirabayna ka mid tahay salawaatu ullahi wasalaamu calayhi. mana ahan dadka muslimkaa oo islaam sheeganayo inay dhexdooda kelimaadkaasoo kale ay ku jirtaahi wax saxa ma aha, waana wax aanan diinta ilaahay lagu dhaqminay ka mid tahay. nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi kullukum min aadam wa aadamu min turaab. bani aadamka dhan hal asalay ka yimaadeen oo aadam ah. aadamna ilaahay caradaasoo ka abuuray. laa fadla licarabiyin calaa cajamiyin walaa cajamiyin calaa carabi. qof ka fadli badan ma jiro. keliya islaamka miisaanka uu noo sameeyey waxa weeye ina akramakum cinda allaahi atqaakum. miisaanka aan leenahay qofba qofkuu ka taqwo badan yahay weeye, laakiin ma aha qoloba qoladay ka laandheeraysan tahay, ka xoog badan tahay, ka hub badan tahay. macnaheedu ma aha. waxa weeye ina akramakum cinda allaahi atqaakum. sidaasaa la rabaa. haddaad aragto dadka qabiil ku faquuqayo, qabyaaladda ka shaqaynayo, mahalkeedu waata nabiyullaahi maxamed uu yidhi layadacanna aqwaamun yaftakhiruuna biaabaa'ihim aw layakuununna ahwanu cinda allaahi min aljuclaan. ha ka tageen dadka ku faanayo aabbayaashood, hebel iyo laandheeraan nahay iyo fulaan baan nahay dhahayo, ha ka tageen. hadday ka tegi waayaan inay aabbayaashood ku faanaan, bahalka la yidhaha doorshaanka ama xaarwalwaalka dadku u yaqaanaan, waa ka liidnaan badnaanaya ilaahay agtiisa subxaanahu wa tacaala. doorshaanka waad ogtihiin bahalka la yidhaahdo carafta way dhibtaa. haddii barafuun lagu shubo waa u dhimanaya. maantao dhan inuu xaarka asanka ku dilaadiliyo buu rabaa. qofka qabyaaladda ku jirana qurunkaas inuu ku dhex jiro rabaa oo dadka sidaasoo ku liido ayuu rabaa. waa qof qurunka ku dhex jiro weeyaan. marka waxa keenayo waa jaahiligii iyo jahligii ummaddan in laga tawciyeeyo u baahan. oo arrinkaas isma geyna iyo dameeraheenna ma wada iskuma tagaan iyo kelimaadkaas waa kelimaad jaahiliya wey. in qofka muslimkana uu ka fogaado baa la rabaa, laguna qiimeeyo qofka ina akramakum cinda allaahi atqaakum. maxaa yeelay ilaahay wuxuu leeyahy ya ayuha annaasu inaa khalaqnaakum min dakarin wa unha wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaarafuu. qabiilka iyo shucuubta iyo waxa loo sameeyey liajli tacaaruf wey. nasabkaada inaad ku garato, dadka kale ka garata bas. yaa guurkiisa kuu bannaan yahay, yaad isdhexlaysaan, yaa silatulqaraaba kugu leh, intaa inaa baratidaa lagaa rabaa. laakiin miisaanka dhabta ah lagu kala sarraynayo waa ina akramakum cinda allaahi atqaakum. intaas inaan maaragtay shacaar ay noo noqoto ayaa la rabaa. baaraka allahu fiikum. الله خالقنا يحيطكم أبدا بالأجر كثبانا ينيلكم حلالا في الخلد فاخرة ويسبغ الأجر للأعمال.